Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Insha Allah waxaan muuqaalkan intii alla iga garansiiyo aan kaga faalloon doonaa xornimadii Soomaaliya aniga uga gol leh inay dhalinyarta da'da yari ay dareemaan halgankii dheeraa ee ay awowyaasheen u soo mareen waddankeena oo aynu ogaano cadowgeena dhabta ah iyo cadowgeenu waxa uu yahay. Ku soo dhawaada muuqaalkeena oo aynu ka soo bilaabi doono 1960kii markii uu soo idlaaday xilligii xorriyaddu. waxaa si muuqata xiriiro dhow u yeeshay dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya oo laga dhisay gobollada koonfur iyo xisbigii Somali National League oo ka halgamaya gobollada waqooyi. waxaana lagu kulmay shirkii weynaa ee Soomaali oo dhan oo xamar ka dhacay Agoosto 1959 si looga hadlo dhammaan dhaqdhaqaaqyada Soomaaliyeed. waxaana la go'aansaday in si nabad ah lagu mideeyo dhaqdhaqaaqyada Soomaalida oo dhan. waxaa kulankaas lagu aasaasay dhaqdhaqaaq wadani ah oo isku xira Soomaalida oo dhan, xaruntiisuna ay xamar tahay, hadafkiisuna yahay in si nabadgelyo ah lagu xoreeyo dhammaan gobollada Soomaaliyeed lana mideeyo. dhaqdhaqaaqaas waxaa xoojiyey dareenka shacbiga oo soo noolaaday ka sokow guud ahaan qaaradda Afrika oo ay ka socdeen dhawaaqyo xooggan oo ay wadaan dalal Masar ugu horreyso oo ku dhawaaqaya in dalalka la gumaysto ee Afrika la xoreeyo. waxaa la qabtay shirar ay Afrika iskugu imanayso oo ay ku dalbanayaan in la xoreeyo Afrikada la gumaysto. waxay ahayd markii uu shaac baxay dhawaaqii Masar ee ahaa Afrika ayaa leh. xaaladaas cusubi waxay keentay in uu Ingiriisku ka baqay Soomaalida marka ay xorowdo in ay aado dalalka shuuciga ah ee Sofiyeetku hogaaminayo sidii ay Masar yeeshay. sidaas darteed dowladdii Ingiriisku waxay go'aansatay in ay ogolaato in ay Soomaalida waqooyi xoroobaan, dabadeedna ay la midoobaan gobollada koonfur ee Soomaaliya oo xornimadooda qaadan doona sanadka 1960. bishii Febraayo 1960 doorasho lagu sameeyey Soomaalida waqooyi. waxaa lagu dhisay xukuumad maamusha arrimaha gudaha ee dalka, uuna wasiirka koowaad ka noqday Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, Allah ha u naxariistee. maalintaas dadweynaha waxa uu sii kordhay rabitaankii mideynta labada gobol ee Soomaaliyeed. waxaa jiray aragtiyo kala duwan oo ay kala qabeen xisbiga Somali National League iyo xisbigii USP oo kolkaas xukuumadda arrimaha gudaha dhismaheeda isku bahaysatay oo ku saabsan goorta tillaabooyinka mideynta labada gobol la qaadi doono. wasiirkii koowaad iyo rag xisbigiisa ahi waxay qabeen in aan la dedejin midowga labada gobol sababtoo ah muddo ayaa loo baahan yahay si la isugu soo dhoweeyo dheeliga u dhaxeeyay horumarka guud iyo dhaqaalaha labada gobol. xisbiyada kalena waxay qabeen haddii aan la dedejin midowga dhibaatooyinka ayaa iman kara keeni kara in ay adkaato in la midoobo. aragtidaas ayaa loo badnaa, kolkii dambana iyada ayaa la qaatay. 6 bishii Afraad 1960 golaha la tashiga ee gobollada waqooyi wuxuu go'aamiyey in degdeg loo helo gobonnimo si loola midoobo koonfurta. isla xilligaasna shir ayaa Muqdisho uga socday siyaasiyiinta Soomaalida, maxmiyadda gobollada waqooyi iyo maamulka wasaaradda Talyaaniga ee qaramada midoobay oo socday. 16 bishii 25aad afarteedii shirkaas waxaa lagu gaadhay 5 qodob oo aynu tilmaami doono. lambar 1 in la mideeyo Soomaaliyada maxmiyadda Ingiriiska iyo Soomaalida wasaayada qaramada midoobay ee Talyaanigu maamulo ayna noqdaan Jamhuuriyadda Soomaaliyeed. 1 bishii 7 1969 iyada oo la cuskanayo codka ogolaanshaha labada gol ee sharci dejinta qaranka. labada gole ee sharci dejinta waqooyi iyo koonfur waa in ay kulmaan 1 bisha 7 1960. lambar 3 golaha cusub waa in uu doorto madaxweyne. 4 waa in asxaabta labada gobol ee awoodda haya waa in ay dhisaan xukuumad isbahaysi. 5 magaalo madaxda dalkuna waa in ay noqoto xamar iyo qodobo kale. shirkii dastuuriga ahaa ee London lagu qabtay 2 bishii 12 1960 waxaa lagu go'aamiyey in Soomaalida waqooyi xornimo la siiyo. 26 bishii 6 1960 waxaa shirkaas gudoominayay xoghayaha gumaysiga ee Ingiriiska Master Macmillan. kulankaas oo ay ka qayb galeen ergiyadii maxmiyadda Soomaalida waqooyi iyo dowladda Ingiriisku. waxaa ka soo qayb galay gudoomiyihii maxmiyadda Dr. Douglas Hall. dhanka Soomaalidana waxaa ka soo qayb galay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal
oo ahaa wasiirkii koowaad iyo 3 wasiir oo kale oo la soo doortay oo kala ahaa wasiirkii arrimaha deegaanka Axmed Xaaji Ducaale, wasiirka hawlaha guud iyo isgaarsiinta Cali Garaad Jaamac, wasiirka arrimaha bulshada Xaaji Ibraahim Nuur. Ugu dambeyntii 26 bishii 6 1960 ayay xornimadii qaateen gobolada waqooyi. 4 maalmood kadibna waxaa dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliyeed. Fadhi aan caadi ahayn oo isla maalintaas la qabtay ayna ku kulmeen labada gole ee sharci dejinta waxaa lagu dhawaaqay gobolada waqooyi iyo gobolada koonfur in ay ku midoobaan Jamhuuriyadda Soomaali. waxaana loo doortay madaxweyne mudane Aadan Cabdulle Ismaan oo ahaa gudoomiyihii golaha sharci dejinta ee wasaayadda Talyaaniga. Goluhu wuxuu kale oo u ogolaaday mashruuc dastuur cusub oo badidiisa laga soo minguuriyay dastuurkii Talyaaniga in loo qaado afti oo ay ku ansixiyaan dadweynaha sanad gudihiis. madaxweyne Aadan Cadde wuxuu ra'iisul wasaare u soo magacaabay Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo isna soo dhisay dowlad 14 wasiir ka kooban. sanadkii 1961 ayay dowladdu waxay magacowday guddi sharci yaqaan ah oo soo mideeyay shuruucda ciqaabta dalka. guddidaasna wuxuu ahaa sidan: sharci yaqaan Bible Talyaani oo ahaa nin Talyaani u dhashay waxaa laga dhigay gudoomiyaha maxkamadda sare. sharci yaqaan Angelio oo Talyaani isaguna. sharci yaqaan Continuo Maraykana. sharci yaqaan Yuusuf Dhuxul oo Soomaaliya. golaha sare Maxamed Ibraahim Soomaali ku-geenka taliyaha ciidanka booliska.